وهاجاك daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee aanu barnaamijkeena maanta si kooban uga hadli doono Allah u naxariistee taariikh nololeedkii sareeya guuto Generaal Maxamed Jibriil Muuse inkastoo aynaan wax mar qura halkan ku soo wada koobi karin taariikhdiisii misana waxaan haddii Allah awood leeyahay inoo idmo halkan kaga hadli doonaa qaybtii koowaad ee taariikhdii dahabiga ahayd ee sareeya guuto Generaal Maxamed Jibriil Muuse الله ونحرسته جنرال محمد جبريل موسى وحو كل شيء برعد يبرمدو أو كتالا قبل كمودك دولت كمجالة قال كعيا سنة كمركوها كون سجال بقول سديد يلا واتنكي أبيهس جبريل موسى يحيى وحو أها نين شيخ أو دين إسلام كسوين لوجو قدرين جري هو يديس وحلو أورنجري عور الله خير أيان سماء أو نانيسهان لو يقاني عدي الله نحرسته سرية قوتو جنرال محمد جبريل موسى وحا لدى شيء تدبويل إيا صدح قبلود دادكاس أو فرع عودو غاريو إلا دور بقول أقف هاتن الله نحرسته سرية قوتو جنرال محمد جبريل موسى وحا او شقاد أسكار النماذا قرطي سندكو مركو وها كون سقال بقول صدح يا فرتنكي isagoo jooga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wuxuuna tababarkiisa askarinimo ku qaatay markii ugu horeysay dugsiga tababarka ee magaalada Baydhabo haddaba 1946 waxaa loo bedelay magaalada Buulaberde ee gobolka Hiiraan isla markaasna waxa uu si qarsoodiya uga mid noqday ururkii SYL 1948 wuxuu noqday taliyaha saldhigga degmada Xudur isla markaasna waxa loo magacaabay xisaabiyaha guud ee ciidanka booliska 1950 waxa uu ka mid noqday xafiiska booliska ee gaarka ah Special Service isagoo ka soo qayb qaatay qorshihii Soomaaliya loogu diyaarinayay madax banaanida 1954 markii uu Talyaanigu ciidamadii booliska ku wareejiyay xukunkii degmooyinka waxa loo magacaabay isagoo saajina taliyaha saldhigga degmada Qarro ee gobolka Bari hase ahaatee isla sanadka gudihiisa ayaa xabsiga loo taxaabay jananka kadib markii la ogaaday in uu ka tirsan yahay ururka SYL haddaba daawadayaal 2 sano kadib xarigiisii 1957 waxaa Generaal Maxamed Jibriil Muuse loo bedelay magaalada Muqdisho oo ahayd halkii uu kolkii horeba ku dhameystay waxbarashadiisii dugsiga sare dabadeedna waxa uu galay maxadka tababarka ciidamada oo u dhigma mar ahaanta heer jaamacadeed sanadkii 1960 waxaa loo magacaabay madaxa taliya ku-xigeenka iraahda ciidanka iyo waliba kaaliyaha amniga ee sida khaaska u ahaa marka iyada ah madaxweynihii hore ee aadan cabdulla cismaan aadan cadde kadibna waxaa muddo yar dabadeed loo diray dalka Talyaaniga halkaas oo uu ka galay kuliyadda ciidamada isagoo markaa gaaray darajada xidigle waxa uu sanad kadib 1961 tababar u aaday dalka Kenya isagoo dalalkii kale ee uu tababarka ka soo qaatayna ay ka mid ahaayeen Ruushka Jarmalka Ingiriiska Iraq Imaaraadka Kuwait Suuriya Masar Tanzania Kenya Talyaaniga iyo dalka Mareykanka oo uu ku soo qaatay cilmi la xiriira tababarka booliska sanadkii 1962 wuxuu u dalaacay laba xidigle sanadkii 1964 wuxuu qaatay darajada dhamme isagoo sanadkii 1967 noqday gaashaanle 1970 gaashaanle dhexe iyo 1973 waxa uu noqday gaashaanle sare haddaba daawadayaal sanadku markuu ahaa 1978 ayaa si buuxda loogu magacaabay darajada sareeya guuto 1980 waxaa mudane Generaal Maxamed Jibriil loo magacaabay wakiilka golaha dhexe ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee gobolada Mudug iyo Galgaduud halkaas oo uu nabadeyn ka sameynayay sanadku markuu ahaa 1981 waxa uu noqday taliyihii nabad sugidda ee dalka Soomaaliya gabi ahaan oo markaa loo yaqaanay NSS kasakow xilalka kala duwan ee uu soo qabtay Allah u naxariistay sareeya guuto Generaal Maxamed Jibriil Muuse waxa uu
laga soo bilaabo 1950 ilaa 1990 ka tirsanaa ciidamadii booliska ee gaarka ahaa ee loo yaqaanay special service. bilowgii 1990 wuxuu noqday wasiiru dowlihii madaxtooyada kacaanka Soomaaliyeed ee dawladii Maxamed Siyaad Barre tan iyo markii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliyana ku dhex noolaa dalka gudihiisa gaar ahaan gobolada Puntland oo uu markii didibada loo taagay 1998 kamid ahaa asaasayaashii lafdhabarka u ahaa yagleelidii dawladnimo ee maamulka Puntland. haddaba dhageystayaal anigoo ah Maxamed Cabdi Faarax Gollaawe Maxamed Dhuungale halkaas waxaan ku soo koobaynaa qaybtii koowaad ee noloshii taariikh ahaaneed ee generaalkii Maxamed Jibriil Muuse Allah u naxariistay. inta aynu barnaamijkan qaybtiisa labaad dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay inta iyo nabadgelyo.